dunidan casriga ah iyo sida uu waqtiga ku socdo waxaa badanaya dhaqaale xumada iyo sicir bararka sidaas oo ay tahay waxay sheegeen dadka inay u kala qaybsami doonaan laba gruubka koowaad oo ah dadka taajiriinta ama maalqabeennada iyo gruubka xiga oo ah kuwa fuqarada ah haddaba meeshaas waxaa ka bixi doono dadka noloshooda ay ahayd dhexdhexaadka ama middle classka waxay sheegaan sida ay hadda dunida ku socoto haddii aad ka mid tahay dadka middle classka ah waxaa kuu bannaan laba choice inaad ka mid noqoto kuwa maalqabeennada ah ama in noloshaada ay dib u noqoto sicir bararka iyo dhaqaale xumada ayaa sababay in dadka ay u kala qaybsamaan labadan kooxood haddaba meeshan waxaan iskula eegaynaa dadka taajiriinta ama bilyaneerada ah sanadkan hadda sii dhammaanayo 2023 inta ay faa'iideen sanadkan bilyaneerka lagu magacaabo Larry Page oo ah aasaasaha shirkadda Google hantidiisa waxay dhan tahay 111.7 bilyan oo dollar laakiin sanadkan hadda sii dhammaanayo waxa uu faa'iiday ama helay 34.4 bilyan oo dollar milkiilaha Amazon Jeff Bezos sanadkan 2023 waxa uu faa'iiday 65 bilyan oo